السلام عليكم developers kusoo dhawaada Afan Academy maanta waxaan sameyn doonaa xoogaa yar project yar oo real life ah anagoo adeegsanayno luqadaha kale ah HTML CSS iyo wax yar oo JavaScript ah projectigan soo dhisan ugu horeen waxaan baahnaan doonaa code editor marka aniga waxa adeegsada code editor lagu magacaabo Visual Studio Code adi mid ka jeceshay waa adeegsan kartaa waxa adeegsan kartaa mid lagu magacaabo Sublime Text jiro qofkii ka adeegsan karana waa adeegsan karaa oo waa kana also waxaa jiro mid lagu magacaabo bracket oo asna mararka qaar aan adeegsado bracket la dhahaa so asna waa kana oo soo degsan karta also waxaa jiro midka aniga adeegsado oo lagu magacaabo VS Code kaliya intaas maahan waa cadadan wala xisaaban midka jecesha adeegsan karta for now ani waxa jeclaa inaan adeegsado Visual Studio Code then waxa taaban doonaa marka Visual Studio Code ama VS Code soo searching gareeyo meesha ay ku qoran tahay download marka taabto waxa li soo saari doona daaqadan soo sida arkaysa marka Visual Studio Code sababta ku doortaa waxay tahay waa cross operation wuxuu ku shaqeyn doonaa Windows also Linux iyo Mac aadin marka systemka adeegsanaysa dooran doorta ana deertan waxa adeegsanayaa Windows leeyahay so page kan uu keen doonaa si automatically saarkiisa downloading ay bilaawanayo so waxay u qaadanaa downloading-ka oo daqiiqada yar ama si kama yar speed internet-ka ku xiran tahay waa isku soo noqonaynaa asxaabi adeertan sida arkaysiin marka Visual Studio Code oo soo degay ama downloading oo dhameeyay so markuu downloading ku dhameeyo waxa dhigi doontaa click then waxa dhigi doontaa I accept then waxa dhigi doontaa next install for now installation-ka oo bilaabay isku soo noqonaynaa installation-ka markuu dhameeyo okay developers hadeertan sida arkaysid Visual Studio Code ki installation ko inoo dhameeyay so meeshaan tick saari doona kadib waxa leeyahay finish so sida arkaysid hadeertan Visual Studio Code ka soo kacayo so iska close gareey hadeertan waxa sameyn doona number 1 ina folder soo sameysto waxa aadi doona halkan folder kan description ka ku dhigi doona soo dhameystiran ama soo wixii dhan ku jiraan so for now halkan waxa leeyahay ina dhaho control shift n saa u sameeyo folder cusub folder kaas waxa bixi doona navbar source code ka muuqaalkan waxa ka helaysaa description ka daxiisaynaysid ina adeegsatid so source code kiisa oo dhameystiran description ku dhigi doona insha Allah so folder ka asmesta soo furi doona marka soo furo right click leeyahay kadib waxa leeyahay open in terminal marka dhaho kadib waxa qori doona code space dot kadib waxa leeyahay enter sida arkaysid marka enter aad taabto waxa si automatically igu soo kacay Visual Studio Code ka also Visual Studio Code ka waxa liigu soo furi doonaa folderkii hadeertan aan soo sameeyay navbar ku qornaa Visual Studio Code ka marka imaano hada hore u adeegsan jirto waaba adeegsan jirtay hada ku cusub tahay waxyaalaha ugu muhiimsan waxa kamid ah inaad fahamtid labadan button midkan waxa lagu magacaabaa new file halka midkan lagu magacaabo new folder kan wuxuu ku create gareynayaa sida arkaysid folder halka kan uu ku sameynayo file so for now waxa sameynaynaa file-keen koowaad oo lagu magacaabo index.html kadib waxa sameynaynaa inaan sala qabno shift iyo number 1 marka exclamation mark ay noo sameysmaayo kadib waxa dhahaynaa enter for now san waxa ku heesanaa hordhaca html5 ka title-keena waxa ka dhigan doonaa navbar with Afan Academy okay for now dhalinyaro waxa u baahanahay navbarada ina ka hormariya icons navbarka home ka waxa raba ina raacsiyo icon guri ah ama home also navbar walba ina raacsiyo icon-ka asaga u qalmo so saas u sameeyo waxa u baahanahay ina adeegsado library oo lagu magacaabo font awesome so meeshaan waxa leeyahay font awesome cdn kadib waxa aadi doona maxal di jiray banaanka ama Chrome ka aadi doona hal mar inta Chrome ka aadin waxa soo qaadara waa ku sii sharxo waxa lagu magacaabaa CDN ama waxa laga soo gaabiyay content delivery network wuxuu qabtaa hada waxa ku sharxo maxal di jiray wuxuu ka caawin doona file banaanka website-kaaga yaalo ina marka si directly aw adeegsatid file website kale yaal ama server kale ama computer kale file kaas wuxuu ka caawinaa ina adeegsatid adoo adeegsanaysid CDN link wax lagu magacaabo so for now waxa soo furi doona Chrome-keega adiga browser-ka adeegsanaysid soo furo
so Chrome keyga markaa soo furto meeshaan wax laga searching gareeyaa waxa ku qori doonaa Fonty Awesome CDN خلاص akhyaare waxa ay soo bixi doono page kan soo waxa doorana midkan ugu horeeyo oo CDNJS la dhaho ama website kan CDNJS okay for now waxa imaaday halkan soo halkan waxyaalo badan ku jiro ama links badan ani waxa u baahanahay linkigan koowaad soo linkigan koowaad laba qaab oo qaadan kara ina dhaho copy URL ina dhaho copy link tag soo waxa dhaha copy link tag kadib waxa ku soo laabanaa code editor-ka soo meeshaan imaana control V for now isku xirkii waa dhameeyay ama CDN-ki sidaana ku sameeyay kaliya waa adoo marka file CSS ah amal ah ku xiraysid website-kaaga okay for now waxa create gareysanayna folder lagu magacaabo CSS ku qoreyno code-keeni CSS-ka folder-kaas waxa ku shubi doonaa file lagu magacaabo app.css then waxa sameyn doonaa also folder-ka lagu magacaabo JS asna waxa ku shubi doonaa marka file lagu magacaabo app.js for now waxa sameeyna marka file-shan aan soo sameeyay ina ku xiro file-keyga index-ka number 1 waxa sameyn doonaa file CSS-ka iyo file index-ka ina isku xiro halkaan iman doona kadib waxa sameeyna comment waxa ku qori doonaa custom CSS links so number 1 waxa leeyahay linki kadib laba dhibic qori doona kadib waxa raacsin doona CSS halkaan waxaan ka masixi doonaa so number 1 waxa leeyahay linkiga waxa ku dhex jira folder lagu magacaabo CSS kadib waxa lagu sii magacaabaa app.css for now saan waxa ku sameeyay isku xirka CSS-ka soo waxa imaanaya meesha ugu hooseeya ee body-ga asna waxa sameey doonaa link comment kale comment-gaas waxa ku qori doonaa asna custom JS links kadib waxa dhihi doonaa halkan ina ku qoro maxaa la dhihi jiray script laba dhibic crc saana ay qormaayo kadib waxa sameey doonaa ina meeshan ku qoro JS ina ku qoro kadib slash dhaho kadib dhaho app.js for now isku xirka waa sameeyay waxa gudagaleena coding-ki okay coding-kiina aan bilaabano so first waxa sameyn doonaa ina meeshan comment ku sameeyo comment-gaas oo lagu magacaabo navbar is here the navbar is here marka qoro halkaan ima doona class waxa sameeyna div oo class-kiisu yahay header then header-kaas waxa dhex gali doona also nav tag-gaas dhexdiisa waxa sii gelin doona ul tag-ga gudihiisna waxa gelina for now li iyo li oo marka ku dhex jiro a tag marka dhex geliyo a tag-gan dhexdiisa kan ugu horeeyo home ka raba soo waxa geli doona sida daay ku sheegay icon-kaas waxa sameyn kara ina qoro oo dhaho i.fast.fa home ama house oo kala dhigi kara oo sida arkaysa deertaan intaan qoro icon-ka waa haystaa ada intaan xifdisaneen ama aadan faahsaneen sida loo isticmaalo Fonty Awesome-ka waxa sameyn doontaa ina ku laabatid browser-kaaga kadib waxa booqanay website-ka international-ka ee Fonty Awesome for now CDN maracsiinaysid Fonty Awesome kaliya qoray website-kana lagu keeni doona meesha icon soo qoran tahay click ku siin doonta URL-ka iska bedel meeshan v4-ka ay qoran tahay iska tirtir icons clear ka dhigo icons clear ka dhigan doonta meeshaas so for now meeshan lagu sii keenaa meeshan markii lagu keeno waxa sameyn doonta in meeshan ku searching gareysid icon walba oo baahan tahay tusaale hadda house oo baahanahay house aan leeyahay so house marka dhaho waxaana li soo saari doonaa qaar sida arkaysid waxa ku qoran pro oo waa lacag so hada free bis oo baahan tahay ina aragtid meeshan free ku dhufanay so sida arkaysid waxyaalaha bilashka lagu soo saara oo house ku saabsan for now mid kana adeegsan rabaa kiliga ku siina kilig marka ku siiyo baab kana ay soo baxay so icon-ka waa intaan icon-ka direct isticmaalaysa react ahaan iyo waxyaalahaas aad dooran kartaa like for now aan waxa adeegsanayo HTML so HTML doorana ama asab automatically igu doormaayo so waxa sameyn doonaa marka meesha ina kilig ku siiyo intaan waa qoraalkan waa icon-ka for marka kilig ku siisid waa lagu koobiyay already so ku soo laabto meeshan meesha hadeertan aydan ku bedeli karaa oo isla meeshii ka aan qortay iyo kan hadda yaalo so saas icon-ka rabto heli kartaa hadaadan faahsanin okay for now meesha marka waxa gelin doona calaamad yar oo space ah oo waxa qora iyo NBSP das mean waxa laga wadaa non bracket space wuxuu ku awuura space oo dheeraad ah so for now meesha waxa ku sii qora home oo meesha godka koowaad home ka raba
inta home waxaas aad sameeyeen hal mar naafka korkiisa ku laabto saa loogada u diyaarsado waxa sameeyna dot log ama div oo kalaaskiis uu yahay logo then waxa dhaxgelina tag dhaxgelina tag kadib tag dhaxdiisa waxa si dhaxgelina icon yaro oo smile ah ama icon yaro logo camal ah so waxa leeyahay dot fast also waxa leeyahay dot fa kadib smile leeyahay meeshaan also waxa dhaxgelina non break space kadib waxa sameyn doona ina ku qoro meeshaan your logo dasmin ada dhow meeshaan magaca arabtid ku qoro ama aad logada sawiraha soo gelinaysa sawiraha soo geli adeeg ugu xiranta okay for now kana waxa sameeyna marka ina isla qabto meeshaan ugu dambeeya imaana ama sadarka meeshiis ugu dambeeya click ku siina kadib waxa isla qabanaa alt shift iyo arrow down also waxa sameey kartaa ina kulligood heelad gareysid intaan kadib control c dhahdid kadib meeshaan imaadid enter dhahdid kadib marka control v ku dhahdid saas sameyn kartaa ama maho waxa sameyn kartaa ina meeshaan ugu dambeeya aadid isla qabid alt shift arrow down also alt shift arrow down afar xaba menu oo baahana menu-ga labaad waxa ku qoran doona about luqada isbedeshay waxa leeyahay about kan oo kale asna meeshaan waxa ka dhigi doona house-ka ID card adeedo waa ku sheegay icon walba oo baahanta soo raadi kadib meeshaan automatically ugu qor okay waxa sameyn doona for now meeshaan oo kale ina ka dhigo course oo kale course marka ka dhigo inta waxa ka dhigi doona book kan ugu dambeeya waxa ka dhigi doona contact also meesha house-ka waxa ka dhigi doona for now phone ama icon-ka yar ee telefoonka adeegsanayna okay for now menu waa inoo diyaarsan yahay also waxa kale inoo diyaarsan logadii hal mar intaan marka ku soo furo live server right click dhigi doona kadib waxa taawana open with live server okay hadeertan sida arkiis marka open with live server dhahay automatically wixii dhan live server ka lagu soo furay home-kii icon-kiisa waa kan wixii dhan icon-kooda weetaan waxa anaga dib u habeyn doona don't worry marka for now live server-ka adigu ku soo degsaneen waxa sameyn doontaa waxa aadi meeshaan icon-kan oo extension-ka kadib meeshaan ku searching gareynay wax dib ma lahan live server leedahay then live server ku soo baxayo meeshaan love ka dhigay live so for now aka click ku si kadib install soo dhihi doontaa okay for now live server-keyga waa diyaarsan yahay waxa kale ku si dara oo qorshaha ku si darsan doona marka responsive uu noqdo waxa u baahana in menu uu noqdo ama icon-ka yar ee menu inuu yeesho so meeshaan imaana waxa leeyahay dot menu icon ama waxa iska sameysana button yar asi sameysana button-kaas waxa siina class name oo la dhahayo menu btn si hadhow ugu wacno also button-ka dhaxdiisa qoraal ma ku qoray kaliya waxa ku qori doona i.fast.fa baris that's mean icon-ka hada u baahnaatid adiga waxa aadi kaliya font awesome kadib waxa searching gareyn doontaa icon-kaas waxa lagu magacaabaa baris so baris marka qortid saarkiis waa kana icon-ka menu-ga kana wuu jira for now kana hada u bedeshana kii hada waa bedelana character soo doorane copy leedahay kadib waa imaane oo copy-yeesane button-ka gudihiisa خلاص hadeertaan da live server ku noqono you see waa kana uu soo galay so hadda kan waa iska qarinayna marka css ka ku qarinayna kan waxa loo baahnaan doona markii responsive kala aado arkayna so for now inta waa ka dhaxbaxanay html-ka waa ka dhamaanay waxa gudgali doonaa css ka so css kana baba waxa u baahnaa doona ina helno font lagu magacaabo penis from Google Fonts oo waxa ka qaadan doona CDN-kiisa website lagu magacaabo Google Fonts so meeshaana waxa ku searching gareyn doona Google Fonts marka searching gareeyo website-kana isoo bixi doono so sida arkaysa marka penis fararta ugu caansan oo kamid yahay oo meeshaana badana lagu soo saari doona so meeshaana click ugu siin doona kaliya misdhibi dooni marka click soo si halka la keeni doona also aad waxa sameyn kartaa farta u baahanta meeshaan ku searching gareeyay marka meeshaan ku searching gareeysid saac amlo kugu soo baxaa
waxa taawanaya meeshan qoran tahay get font ama almara browena meeshan Bobinus naftigiisa marka la ku seejin gareeno so Bobinus marka seejin gareeyo waa kana oo soo baxay click da ku siyo meeshan li keena sen waxa marka leeyahay get font marka dhoo halkaan li keeni doona marka ina soo degsada awooda also waxa awooda ina code ahaan u helo marka ani meeshan taawana code ahaan EC leeyahay so farta waxa isticmaal kar sida arkis Android developer ka iOS developer ka Flutter qofka adeegsanayo so anaga sababta hadeertaan waxa anahay web developer ana web development oo adeegsanuna so weba inoo dooran automatically so waxa sameeyna marka ina taabto import link ahaan oo qaadan kartaa sida daay oo font awesome oo kale so maadaama CSS kana dhigna arabno import ya leena oo CSS ahaan oo qaadanayna so style tag wata marabno intaan clear soo koobiyeenina style tagas waa kareebena so for now copy am control C soo dhaho halkaana imaan doona so kadib waxa leeyahay control V meesha ugu dambeeyay semicolon ka maqan semicolon kaas ku xir خلاص hadeertaan saan waxa ku heesanaa linkigeeni Bobiniska marka hal mar waxa rabaa inaa browbeeyo inuu isku xiran yahay HTML-keega CSS-keega hal mar meeshan waxa ku qori doona body kadib waxa leeyahay background color-kiisa waxa ka dhigtaa red haduu red noqdo that's mean waa isku xirnaa haduu red noqonin cilada jirto yes for now red uu noqday that's mean CSS-keeni HTML-keena isku xiran yahay waxaan hadeertaan iska close gareena marka okay aku soo laawano code-keena waxaana iska masaxno for now waxa sameeynaa custom CSS ka ama default CSS ka ina meesha ka bixino qaar code sida margin iyo padding oo kale so meesha waxa leeyahay comment maribi meesha waxa leeyahay calaamada start kadib waxa furi doona parentheses waa xiri doona marka parentheses ka gudihiisa waxa ku qori doona margin kadib margin default-giisa 0 ha ahaado also padding padding like that asana default-giisa 0 ha ahaado waxa kale wax lagu magacaabo box sizing asana ha noqdo border box also font family-geena waxa ka dhigeena farta hadeertaan marka ku soo xiran halkan so number 1 waxa sameeyna ina furo single quad xiro kadib single quad ka gudihiisa waxa qori doona Bobinus oo xarafka ugu horeeyo uu weyn yahay Bobinus leeyahay kadib hadii Bobinus la waayo marka oo internet qofka uu ku xun yahay oo kale waxa ku bedeshaa far lagu magacaabo sans serif fartaas oo Bobinus ku shahabado oo default browser ku aqoonsanayo okay marka intaan qoro number 2 waxa sameyn doona ina qoro taggeena body then body waxa ka bedeli doona number 1 background color-kiisa color oo marka lagu magacaabo Alice blue sameyn doona Alice blue so number 2 waxa sameyn doona width-giisa ina ka dhigo 100% sorry 100% also height-kiisa ina ka dhigo 100 VH خلاص marka hadeertaan waxa gudgala ina wuxuu class-ki header-ka lagu magacaabay so header marka wuxuu number 1 waxa sameyn doona header-ka in width-giisa ka dhigo 100% also height-kiisa ina ka dhigo ama height-kiisa iska dhaafno dib ugu laabanayna auto for now ka dhigno waxa kala sameeynayna in display-giisa bedelo so waxa isticmaalayna Flexbox box waxa lagu magacaabo Flexbox alaya display-giisa also justify content-giisa waxa leeyahay space around oo kala leeyahay waxa kala ku dari doona padding yar oo 10 pixel for afart angle marka ina ka dhigno padding yar oo 10 pixel for now intaas ugu baxeena header-ka aan gudagalno marka naafka wuxuu ku dhex jiro sida awgeen header-ka so naafka asna waxa leenahay kaliya display-giisa ha noqdo Flexbox wax kala ugu baahannahay malahan so hadana waxa gudagaleena ina wacno nav ama naafka iska dhaafno bisidiisaba CSS-ka ka masaxno so waxa wacina nav kadib waxa leenahay UL ka marka waxa geli doona gudihiisa display-gaaga waxa ka dhigtaa Flexbox also display-gaaga marka Flexbox ka dhigtid waxa sameeysaa خلاص intaas kaliya samee display-gaaga Flexbox ha noqdo kadib waxa si wici doona header nav UL kadib li ga wici doona li ga waxa ku dari doona khiyaaray margin yar oo marka 10 pixel 0 pixel horta kor iyo hoos soo labada dhinacna 20 pixel for now code-ka ku laawna maxaa isbedela soo fiirino you see now inta yara soo sameeyay meeshan waxa ku diyaarsamay navigation-keena oo qurux badan kaliya dartan kala rayn iyo waxa sakriman laakiin as maxalli jiray style ahaan ama as shape ahaan waa okay qaabkii uu taagan yahay loogada waa ki goonigiisa ah
also navki dhexdu yaala halkaan waxa yaala buttonki so buttonkan waa qurxinayna kadib displaygiisa non aan dhahayna for now buttonkaas ka bilaabaynayo waxa leenahay header meeshan isoo basti gray header then header waxa raaci doona saddex xasuusitid buttonka waxa uu soo bixinay hada ku laabto menu btn uu soo bixinay buttonka magaciisa soo qaada menu btn leeyahay then waxa furi doona barantis waa xiri doona waxa dhaha marka menu btn number 1 borderkiisa waxa ka dhigtaa non also padding uu sameeyay oo 10 pixel also border radius uu sameeyay oo 5 pixel also waxa uu sameeyay colorkiisa ina ka dhigtid white also waxa sameeyay background colorkiisa ina ka dhigtid color lagu magacaabo 01 EE52 inuu yahay jeclaa yes EE52 so for now you see waxa inoo soo baxay mid yar oo green oo qurux badan so waxa yar marka bariska mal arko so bariska loo arko waxa dhaha font size kiisa waxa ka dhigtaa so 20 pixel for now buttonka ku soo noqono you see buttonki for now waa top waxa kala ku dara cursor kiisa waxa ka dhigtaa pointer intaas markaa sameeysid buttonka hadeertaan looma baahna marka waxa loo baahan doonaa markii responsive-ka oo aaladaha yar yar uu noqdo so meeshaana waxa dhaha buttonkan displaygiisa non ka dhig marka intaan ku sameeysid buttonka iska qari for now buttonki waa la qariyay meesha waxa ku soo haray logadii iyo also homeki yani navigationki so navigationka ku soo laawana hal mar li gaana waxa leeyahay list stylekiisa non ka dhig list styleka waxa waaye dhibacyadan halkaan kama muuqdo dhibacyadaas inaad iska xiraara marka waxa halkaan ku qoraa list style kadib waxa leeyahay non so for now da ku soo laabto dhibacyadii wuu qarsamay okay for now waxa si sameeyna marka ee taagooda ama linki taagooda inaan qurxiyo intaan isu koobiyay halkaan basti ku dheh then waxa raacsiisa ee tag marka ee taagooda waxa ka bedeleynaa first one colorka ka bedeleynaa oo waxa siinayna color yar oo green kaas ah also waxa dhaha font size kooda waxa ka dhigtaa maybe 20 pixel inuu aad u weyn yahay la taa ku soo noqdo waa zaid u weyn yahay 20 pixel so maybe waxa ka dhigaynaa 18 oo kale okay also waxa dhaha font weight kooda waxa ka dhigtaa 600 ama 500 waa kifay then waxa dhaha marka ina ka xiraara waa waxyaalahan hoose riigmooyinkan hoose yaalo riigmooyinkaas ugu xiro number 1 waxa leeyahay meeshan text decoration non ka dhig for now da ku soo noqdo you see si qurux badan noqdeen hadirtaan wax ka dhiman malahan okay logada marka wax yar ka tataawanayna kora u laabano meeshan waxa dhaha .header .logo so .logo wuxuu ka imaanayaa da xasuusatid waxa soo siinay div asaga gooni oo classkiisa logo yahay then a tag soo dhaxgelinay so waxa dhaha marka .logo muhiim ma ahan kadib a tag si wici doona a tagaas waxa ka dhigi doona colorkiisa greenki also ama colorka bluega oo kala ka dhigo colorka bluega marka ka dhigo font size kiisa zaid u weynay doona oo 25 pixel oo kala ka dhigi doona also waxa sameyn doona font weight kiisa ina ka dhigo 600 خلاص waa markaas ay la tahay dib ugu laabto yes kaliya waxa ka dhiman ina ka xiro text decoration ki hadaay ama underline ki soo saaw xiro waxa qoraa text decoration kadib waxa leeyahay non خلاص oo isku dhamaatay for now you see logadina waa ka oo top waaye also navbar ki oo inoo diyaarsan yahay kaliya hadeertaan waxa inaga dhiman in meeshaan ku soo daro xoogaa yar oo hover ah oo marka muuska dulgeeyo waxa rabaa in calaamad yar ee hoosan ugu soo baxdo so waxa leeyahay number 1 ee taagan iso koobiyay markale kadib ee taagaas waxa dhihi doona ee taaga markii hover lagu sameeyo waxa ku dartaa wax lagu magacaabo after kaasa horta number 1 waxa ka dhiga afterka sorry meeshan hoverka ka bixiyo number 1 kaliya after bisa ku dhaafi doona ee taag afterkiisa waxa ku dartaa number 1 content wax la dhaho qora contentiga wuxuu iga caawinaa meeshas in riigmada ay soo gasho content marka qoro content width si doona oo 20 pixel ah also height yara siina oo 4 pixel ah also waxa leeyahay border radius ka 20 pixel amal ka dhig waxa kala ku dara meeshan asxaabe maxal dhigi jiray background colorkiisa ina ka dhigo color ka deertan adeegsanayna green ka
خلاص اما كلرك بلوغ او كلا كديغو كلركاس بلوغ marka kadigo waxa kala sameeyna ee taagan hoferkiisana ina kadiga كلركي بلوغ oo meesha hofera ku dara hoferkaasna waxa kadiga colorkiisa بلوغي so waxa sameeyna marka meeshan ina ku daro transition na ku daro transition kaas waxa kadiga 0.4 second macna transition kiisa ilaa 4 second ina dhacdo خلاص for now marka waxa sameeyna ina ku soo laabto code-ka ee ka hal mar position kiisa wax yar ku daro position kiisa ka dhigo absolutely also ee taaga marka position kiisa waxa ka dhigi doona relative kan inta absolutely dhaho for now yes ku soo laabto hal mar okay khiyaare ee taaga inta ku daray you see kan loogada ku daray oo after ki waa kana kan loogada ku soo daray marka kuwaan arwaa ina ku soo daray sorry waa khaldamay yes meeshan logo maragta so kan loogada marbiye waxa rabaa kan kale ina ku daro for now meeshan logo ka dhigo nav ka dadka ka bixiyo meeshan oo kale ul ka dhigo li خلاص also meeshan loogada asna ka dhigo nav ul li hadeertan waa okay enough waa yes for now inta soo galaa you see waa kana inta isbedelki uu ka dhacoya okay waxa sameeyna marka after kan ina dhaho top waxa ka soo degtaa qiyaastii 200 oo kale 20 pixel wili 20 pixel uu yar yahay waxa rabaa hal mar ina ila faanto shaxad hoos ina keenaa rabaa soo hada dhaxdaan ay aadsan yihiin marka meesha ugu hooseeyna keenaa rabaa soo waxa leeyahay for now waa 53 oo kale kor ka soo deg yes for now wili zaid waaye oo hoos zaid u soo degeen meeshan dhigo marka 38 خلاص for now top waaye you see so waxa leeyahay hadana dhinacaan u soo baxa oo geeskan meesha uu ka bilaawanayo qoraalka imaada saas sawdo waxa leeyahay kaliya left waxa ka dhigi doonta 0 pixel you see now left gaani aadeen so that position kan waa ina soo qaada also transition kan waa ina soo qaada labadan waxa loogu baahan yahay in la geeyo ee taagi in la geeyo ee taagana loogu baahan yahay okay ee taagana geedoona for now you see inta ku ekaanaya so hadeerta xitaa 38 meeshii daaya ka dhigeynay waxa loogu baahnaa doona ina soo yareeno maybe 30 oo kala ka dhigno you see now waa hoosaysa fiican ugu aadsan yihiin so with digiisa kordhin doona meesha 20 waxa ka dhiga like 60 oo kale yes you see now waa top marka kor wax yara ka sii jari doona wili top waxa dhaha wili 28 waa fit for now height kiisa ama dhirirkiisa waxa ku dari doona ina ka dhigo 5 pixel oo kale okay hadeertaas fiican u muuqdaa marka waxa sameyn doona hadeerta ina display-giisa ama tusaale ina sameeyna number 1 opacity-giisa ina khariyo oo 0 pixel ka dhigo waxa kala sameeyna meeshan width-ga ina ka dhigo 0 marka waxa rabaa width-gaan iyo opacity-gaan marka inay soo baxaan marka muuska la dulgeeyo kaliya in calaamadaas dheer uu soo baxo marka waxa dhaha marka inta 0 ka dhigo inta 0 ka dhigo transition yara ku daraa transition kaas waxa ka dhigaa 0.4 second خلاص كدب waxa sameeyna marka ina inta soo koobiyeeyo oo meesha basti ku dhaho kadib intaana waxa raacsi doona ina meeshan hofer ka raacsi hoferkiya daay ina inta hada ku daro oo hofer dhaho kadib waxa sameey doona parentheses xir width-giisa waxa ka dhigaa 60 pixel marka that's mean markii hoferka lagu sameeyo width-giisa sida daay ku soo noqdo also opacity-giisana for now 1 aan noqdo hadeerta maxaa dhacaya asal aragna marka magic dhaca meeshan fiir you see marka muusku dulgeeyo waxa soo soo baxaayo waa wixii hadeerta soo sameeyay ama afterkii hadeerta soo sameeyay for now inta waa dan oo waa dhameeyay waxa sameeynayna kaliya hadeerta responsive ina fiirino hal mar responsive inspect dhaho kadib fiiriyo iPad Air ka soo ku yahay iPad Air ka you see top oo ku yahay oo wili waa ka uu fadhiyaa wax cilad ma jiro isbedelka meesha ka imaanaysa fiirinayna cabirkaas okay cabirka isbedelka uu ku dhacayo waxa ila tahay qiyaastii intaan oo kale waa kifay markii la soo gaaro 700 waxa leeyahay isbedel oo waxa isku bedeshaa qaab mobile ahaan so waxa sameeyna number 1 ina imaado meesha ugu hooseeyo code-keyga
kadib waxaa qori doonaa comment yar. Commentigaasa waxaa ku qoraa responsive of 700 responsive of 700 pixel. Okay, for now waxaa sameynaa marka meeshaan inaa calaamad add aa qoro, kadib aa qoro media screen, kadib waxaa leeyahay and kadib waxaa furi doonaa labo bracket make it with media screen and make it with. markii uu gaaro 700 pixel you see waxaa sameysaa halkan you will do meesha waxaa ku qori doonaa number 1 waxaa sameysaa navigationka wax ka bedelina. navigationka wax ka bedelina number 1 waxaa sameynaa mino btn kana wax ka bedelo. waxaa leeyahay mino btn displaygiisa waxaa ka dhigtaa block oo natus mino btn. so for now meesha wax ka dhacay fiiriya refresh gareeyo. I don't know maxaa ka khaldan meeshaan ku soo noqdo 700 pixel media screen and make with 700 markuu yahay. okay, important meeshaan ku daro for now. I don't know wili waxa isbedela ma dhacay hal mar ilaa 700. yes for now marka 700 ay maana maxaa dhacay fiir akhyaare 700 you see buttonkiya soo baxayo. so waxaa rabaa in daatada soo qaado box ahaan inta aa u dhigo. so saas u sameeyo waxaa leeyahay saas u sameeyo. number 1 meeshaan waxaa igu wacdaa navbarka wax ka bedelina kaliya. navbarkaas waxaa dhahaa displaygaaga waxaa ka dhigtaa felix also positionkaaga waxaa ka dhigtaa position absolutely ah. also waxaa sii sameysaa right imaan doontaa qadar 20 pixel ka soo sigane. also widdigaaga waxaa ka dhigi doontaa 40 vh inkasuu badan yahay maybe 25 vh. also background color sameysan doontaa oo white ah. also waxaa sameysan doontaa border radius oo qiyaastii 5 pixel ah. also padding yara sameysan doontaa oo 10 pixel ah. also box shadow yara sameysan doontaa oo 1 pixel 2 pixel 3 pixel 4 pixel nashan 4 pixel minus 1 pixel RGBA. kadib waxaa dhihi doonaa 000 then 0.28 خلاص box shadow intaas sameysan doontaa. kadib hal mar navkana soo qaada waxaa ku xiri doonaa nav ul kana waxaa dhihi doontaa displaygiisa block ka dhig. خلاص intana important raasi. for now ku soo noqdo maxaa dhacay you see waxaa sameysmaayo navki inuu noqdo qaabkan. so navki korka soo sika dhihi doonaa. also meeshaan 25 vh ka dhigna waa soo yareena oo wax yar ka soo dhiga. so number 1 waxaa sameynaa ina navka ku laabto 25 vh ka dhigo 20 vh. خلاص also waxaa kala sameyn doonaa ina top ka soo sika dhaho. top waxaa ka soo sikataa 100 pixel oo kale inkastoo inuu yar yahay ila tahay. yes ma yaro for now waa top intaan way nagu filantaa. waxaa kala sameyn doonaa akhyaare ina meeshaan 20 ga ka bixiyo oo afraha ka qaado meeshaan wax pixel ku sheegin ama wax width ku sheegin. yes for now asaas wadi doono saarkiisid waa top hadeertaan. خلاص intaan ka keenayna. also waxaa kala ku daraa hal mar ina dhaho meeshaan dot header kaasa waxaa ka bixi doonaa paddingkiisa headerka paddingkiisa waxaa ka dhigi doonaa top iyo bottom inuu 20 pixel noqdo 0 pixel inuu noqdo labada gees oo important ah wili. for now afiiriyo okay waa hadeertaan. waxaa kala sameyn doonaa ina marka kan xoogaa yar li ina waco xoogaa yar li ina waco li ku daro inay kor iyo hoos ay kala sigtaan. so li waxaa dhihi doonaa margin markaa dhaho 10 pixel dhihi doonaa kor iyo hoos labada dhinacna 0 pixel. for now important hadda ku soo laabto you see now home iyo wixii dhan way kala sigteen. marka waxaa sameyn doonaa meeshaan 10 ka oo navka inaa ka dhigo like 15 oo kale inaa ka dhigo. خلاص so widthgiisana waxaa ka dhigaa auto. widthgiisa waxaa ka dhigi doonaa auto.
asaa markaa iswadi doona markaso for now okay waxa kale sameyn doonaa hadeertaan wax inaga dhiman ma lahan in kan xoogaa dhahno right waxa ka soo sikata like 50 pixel oo kale ka soo siko for now device-yada kala ku fiirino like pixel Google Pixel kan oo kale mobilekiisa waa top sida arkaysid also Pixel 4 top uu ku yahay iPhone SE ga marka device walba deertaan wala jaan qaadi kara responsive keena hada laptopka ku soo noqonana you see waa sidii hore noogu soo celinaa okay for now waxa ku soo daraa wax yar oo JavaScript ah oo marka responsive ka naga caawinayo hal mar responsive ka dib ugu noqdo ama waxa sameyn doonaa shaashadaba inaa kala qeybiyo la socono waxa ku dareeno oo live aw aragno waxa sameyn doonaa hadeertaan sida meesha arkaysid JavaScript yar oo waxa rabaa waxaan marna iga qarinayo marna i tusaayo hadeertaan responsive ka waa fit sida arkaysid meeshan wax yar waxa qurux badnaa leh widthga ina wax ayman aasiino 18 vh oo kale 18 vh da uu ku yar yahay ka sana rabi so meeshan waxa ka dhigaa 25 vh yes 25 vh sida arkaysid waa top so 25 vh kiisa ku dhaafana border radius kiisa wax yar ku dara hal mar oo border radius kiisa meeshan waxa leeyahay for now where is border radius ka 10 pixel oo kale yes 10 pixel waa fit so for now waxa sameeyna ina JS ka aado oo wax yar JavaScript ku soo darsado number 1 waxa leeyahay asxaabe comment meeshan ku sameeysana waxa leeyahay hide and show nav JS code okay so number 1 waxa sameeyna ina qoro adana let variable kaasoo lagu magacaabo nav variable kiisa la mid noqdo document.get element by element name by tag name so by tag name marka dhaho waxa dhihi doona nav wixii doonta navgas ay wacnaado also let's leeyahay mino btn let mino bt ama mino btn ka waxa sameynayna on kiligaas oo siinayna okay indexka ku noqonayna mino btn ka imaanayna kadib meeshaan waxa ku dareena on click markii click lagu siiyo waxa sameeysaa show wax la dhaho sameey show wax la dhaho sameey ama function show la dhaho abuur okay aba ku soo noqona marka intaas aan qorno waxa leeyahay function sameey oo la dhahayo show functionkaas show haduu dhaco waxa sameeysaa marka if hadii maxay marka number 1 meeshaan hadana waxa sameyn doona ina let's add dhaho mino btn also aso akhristo aadaho wuxuu la mid yahay document.get element by class name of waxa soo siina xasuusataan mino btn class so waxa dhaha marka if hadii mino btn.class listigiisa ama mino btn akhyare waxa rabaa meeshan mino btn kaliya marew meeshan hal mar inta iska tiro get elementiga ma karibiye query selector ka dhigo so waxa sameeyna mino btn marka ayga mino btn ku jira raba ama iconkaas ina qiimeysto iconkan bariska waxa raba asaga ina ka qiimeeyo hoosha qabaro so meeshan waxa dhaha baris bes ka dhigi doona meeshan mino btn ki ugu qoran baris ka dhigi doona so intana waxa dhaha baris.class list marka baris.class list consist adu ka kooban yahay wax lagu magacaabo fa iconka magaciisa muxuu ahaa baris ma ahayn laakiin magac kale ahaa oo baris kamid ah yes wuxuu ahaa baris kadib waxaana raacsiisnaa baris integrate miya saas oo kale iconkaas waa ina qiimeysto so waxa dhaha hadii class listiga iconka uu ku dhex jiro wax lagu magacaabo baris integrate waxa sameeysaa navka dot class listigiisa waxa ku dari doontaa class list lagu magacaabo show okay dot add meesha dot add waxa ku dari doontaa class list lagu magacaabo show okay else marka hadii aysan dhicin arintaas waxa sameyn doontaa also markii kan aad ku dartid hal mar wax kale ka iloowi meeshan waxa ku sii daray bariska wax ka bedeli baris.class list dot replace waxa ku replace gareyn doonta class listigiisa show class listigiisa waxa ku replace gareyn doonta maxal dhigi jiray meesha waxa ku qoran inta iso koobiye almar meeshan waxa kala dhigay fa meesha fa raacsiinay
intaan iisoo koobiyey inta ku baastigre marka intaan waxaa ku bedelaa calaamada oo x marka x calaamada x ama calaamada khaladka ama crosska soo waxaa leeyahay meeshaan fa x mark calaamada x ka marka calaamada x ka ku bedel bariska okay arintaas hal mar aa jikareeno inuu dhacay in kale hal mar meeshaan xero okay arintaas inuu dhacay in kala fiirino error jiro soo noqonayna I don't know okay waxa kala sameyn doona akhyaare ina meesha aan dhahno else hadaysan arintaas dhicin dad showgan soo qaad dad showgan markaa soo qaadid meeshaan ad kale waxa igu badishaa remove dad showgan ka bixi macna hadii oo waxaas aysan dhicin dad showgan ka bixi also kan la isoo koobiyey kana waxa ku sameyn doona marka meeshaan bariska ah waa kal aksi ka dhigi doona intaana waxa gelina hada intaan ka soo dhaho meeshaan gelina intaan also meeshaan waxa geli doona fa x mark خلاص for now intaan abrobe inoo shaqeeyo in kale refresh mar dhaho ma shaqeynaayo maxaa marka error-kii haysta soo fiirina inspect dhaho inspect marka dhaho console waxa cilad ka jiro isku xirkeena cilad ka jiro isku xirka okay asxaabe meeshaan cilad ka jiro you see isku xirka cilad ka jiro oo meeshaan .js ina dhahnaa la rabaa isku xirkiya cilad naga haysto for now uu shaqeynaa marka hada ku soo noqdo meeshaan soo hadeerta marka inta barowe yes meeshaan uu shaqeynaya marka waxa rabaa meeshaan marka kilig lagu siiyo inuu kan tuso marka inta taabtan inuu xirmo saas u dhacdo css kale ku noqona wax dhib ah ma jiro css ka marka ku laabto nava imana kadib navka number 1 waxa leeyahay horta display-gaaga waxa ka dhigtaa non display-gaaga marka non ka dhigto sidaarkiis uu xirma kadib waxa dhaha marka meesha nav.show navka di class show la dhahayo la soo raaciyo control z nav class show la dal soo raaciyo waxa ku sameeysaa display-giisa waxa ka dhigtaa inline maahane waa falakis display-giisa falakis ka dhig خلاص inta baraway had yes you see now you see waa ka hadeertan akhyaare intaan uu eg yahay soo waa sameynay navigation or responsive hada mar ku laabano waa kana also hada inspect dhaho responsive kiisa aa fiirino you see responsive kiisa waa ka oo aalad walba ku shaqeyn doona so intaana ku akeenayna for now assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh